weligaa ma maqasho idhaahda ah markaad tilmaamto wasakhda adiga ayaa lagu nadiifin doonaa. haddaba saad u fahanto waxaan kaaga sheekayn doonaa qiso gaaban ee keli waxaan kaa codsanayaa wakhtigaaga. wakhtiyada ka mid ah nin fannaan ah ayaa noqday sabool kadib markii uu waayey shaqo, isagoona go'aansaday inuu sameeyo taalooyin yaryar oo suuqa ku iibiyo. waxaana uu sameeyey taalo ugu magac daray wasiirka, isagoona bilaabay inuu ku dhawaaqo wasiirku waa 1 diinaar oo keliya ayaan laydinka dhammaysan. kadib ciidan ayaa maqlay iyadoona sarkaalkii uu yimid. ma uusan weydiin saboolnimadiisa, balse wuxuu ku yidhi maxaad ka samaysay taaladan rakhiiska ah ee aad ku magacowday wasiirka? fannaankii ayaa ugu jawaabay waxaan ka sameeyey ciid, biyo iyo wax yaro qashinka meelaha lagu tuuro ah. sarkaalkii ayaa marka uu maqlay qashin xanaaqay, isagoona askartii u diray inay garaacaan fannaankii. maalmo kadib fannaankii uu soo laabtay isagoo wata taallo cusub oo ugu magac daray fannaanka, kuna iibinaya isla 1 diinaar. sarkaalkii ayaa mar kale u yimid oo weydiiyey hadda maxaad ka samaysay taalooyinkan yaryar ee aad ugu magac dartay fannaanka? fannaankii ayaa ugu jawaabay waxaan ka sameeyey ciid iyo biyo keliya. sarkaalkii wuu yaabay wuxuuna weydiiyey maxaad uga reebtay qashinkii? fannaankii ayaa dhoola caddeeyey kuna yidhi haddii aan qashinka ku daro waxaan noqon lahaa wasiir. ogow, nidaam kastoon cadaalad ku dhisnayn wuxuu kor u qaadaa ciddii aan qiimo lahayn, wuxuuna hoos u dhigaa dadka kartida leh.